وإلهي مهديس إن عاوة أن هل كان السجون معدنا إنه كله كن قف وكسران مجال ماذا هذا قل مدوجة وسمراب كان وضع شقينا إن سيدي اللورد ما يستري لهاي جد سعد كا دبردس كقل مدوج وهذين كيوم هذا علينا يا كسوقيب قل كات كسوقيب قشان افتين كهال كان كم مغضى وحوها مد لقى فكرة كلية إنه دعي كرو سدح ما أفر بلاد كار وعن هال كانوا قم هذا علينا يا جودي قد بهشيسين تا والسوق من قابية شركا وشغاد وأذقنا السوق بطي حلية دي أنصار دافني وعن سيدو كلام هذا علينا يا وزير سبرية وزير وهلية يدمان شغالها وزارة دارمها جودها والشقوين سوق بطي بلا بدن يا وقت بدن نسوق لي هوشان عاو فدنو وعن محد بلارن ujeedina يا علماء الدين كأهل السنة كل جود شيخ محمود شيخ أشعري يا شيخ شاكر ومالنتي عن هل كان نمد إلا هدا نجرب تاجنا ددال كيسة يدلقات كيسنا وسبب توين وياها عاوة إن هل كان جبنا حن إذن كقعد سنة يا إنسي مقل الله سبعيو شيخ شاكر وحن مهدو علينا ناوي لشي دلن يردها iyadoo aan inteena kale ku dhiirraday inay xoreeyaan deegaanka 8 wiil oo Soomaaliyeed oo reer Galmudug ah ayaa bilaabay inay cadawga ka xoreeyaan halkan dadaalkoodii ayaan halkan ku fadhinaa intii dhimatay oo kamid ah 8daas wiil Allah u naxariisto qaar kale oo kamid ah oo nool 8daas oo anagu la kulmayna waxaan leeyahay abaalkii waa la idin hayaa intii kale oo qayb ka ahayd oo iyaga la sheegina waa mahadsantiin waxaan halkaan ammaan iyo sharaf uga soo jeedinayaa madaxweyne xaaf oo bilaabay dib u heshiisiinta caawaan halkan u fadhino oo qaatay go'aan geesinimo leh markii uu ku baaqay in Galmudug la mideeyo ayna ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah nalama jooga caawa madaxweyne xaaf laakiin dadaalkii uu soo maray inuu Galmudug isu keeno iyo baaqi uu ku baaqay in doorasho la qabto ayaa iyadana sabab u ah inaan caawa halkan joogno waxaan leeyahay madaxweyne xaaf waa mahadsan tahay dadaalkii aad soo gelisay reer Galmudugna abaalay ku hayaan idinkana waxaan idinka codsanayaa isagoo naga maqan inaan si mug leh isagana sacabada isugu geeyo waxaan mahad celinaynaa ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka kuwa la qarameeyay iyo kuwa horeba oo aad aragteen siday uga shaqeynayaan amniga magaalada iyo gobolka oo u diyaar garoobaya si aan idinkugu bishaareeyo inay bilaabaan howlgallo waqti dhow si looga xoreeyo cadawga dhammaan deegaanada Galmudug hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u mahad celinaynaa ciidamada walaalaheena amisom oo iyaguna nala jooga magaalada oo nagala shaqeynaya si aan uga maray dhalada dadaalkan hadda socda waxaan mahad gaar ah u celinayaa xildhibaanada labada aqal oo nala soo bilaabay geedi socodkan nala maray meel walba caawana halkan fadhiya badankood waxaan leeyahay waad gudateen waajibaadkii ay idinku lahayd deegaankiina oo la idin soo doortay waxyaraa dhiman u dhabar adayga
oo nala dhammaystira. waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada reer Galmudug oo qayb ka ahaa dadaalkan oo iyaguna yimid magaalada dhowr mar oo nagala shaqeeyay hawshan iyada ah. waxaan marna la ilaawi karin doorkii dhalinyarada reer Galmudug ay ka qaateen geedi socodkan. meel walba ay joogaan oo Galmudug ka mid ah, Cadaado iyo Cabudwaaq iyo Guraceel iyo Dhuusamareeb, Xaraale iyo Hurshe, Gaalkacyo, meel walba aan tagay iyo kuwa xamar ka yimid oo soo xilqaamay oo reer Galmudug waa yidiilo, waa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Galmudug ka soo jeeda. idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. gabdhaha Soomaaliyeed oo na garab taagnaa maalintii aan shaqada soo bilownay, la'aantiin Galmudugna ma jirteen, Soomaalina ma jirteen. waa u mahadcelinaynaa gabadhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. abwaanada reer Galmudug oo markii shaqada aan bilownay iyadoo inta badan aanay aaminsanayn inay miro dhalayso, aaminay oo bilaabay inay dadka dhiirigeliyaan, caawana halkan qaarkood joogaan. waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. odayaasha halkan fadhiya oo meel walba oo aan tegay aan ugu nimid na soo dhaweeyey, albaabada noo furay, guryahooda nagu soo dhaweeyey, waa idin mahadcelinaynaa. weliba dulqaadka aada muujiseen waqtiga dheer oo halkan joogteen. waxaan leeyahay shaqadii aada soo bilowdeen dhammaystirkeedii aad ku jirtaan, ilaahay ha idinla garab galo, waana mahadsantihiin. ugu dambeyntii waxaan leeyahay beesha caalamka oo reer Galmudug iyaduna garab taagneed, oo aan aaminsanahay inay muujiyeen dadaal dheeraad ah oo ay tahay kulligeen inaanu mahadcelinno. dadkaas reer Galmudug oo dhan kulligood waxay fahmeen in Galmudug ay tahay xuduntii dalka isku xareysay waqooyi iyo koonfur. dadka halkan fadhiya iyo kuwa reer Galmudug oo dhan waxay fahmeen inay Galmudug tahay ahaan jirtay inay xuduntii ganacsiga Soomaaliya, xuduntii xoolaha. waxay fahamsan yihiin inay tahay xuduntii xornimada iyo xuduntii laga oogi jiray lagana ooga Soomaalinimada. waxay fahamsan yihiin inay Galmudug tahay ahaan jirtayna xuduntii difaaca dalka. maanta waxaa halkan ka muuqata marka laga qiyaas qaato 1000 qof ku dhowaad halkan fadhida inay noqon doonto xuduntii heshiiska iyo nabadda Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo. maadaama marka haddii aad tihiin reer Galmudug aada isku raacdeen inay tahay xuduntii dalka, aada og tihiin inay lafdhabar tahay, su-aashii waxa ay tahay siduu u noolaanayaa qof xudunta laga hayo. haddii aan xuduntii daawo loo helin, Soomaaliya daawo loo heli maayo. Galmudugna waa xuduntii ma daaweysno. Galmudug daaweysan, Galmudug nabad ah, Galmudug heshiis ah, Galmudug leh maamul shaqeeya, waa horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. haddii aan ku sii noolaano Galmudug wax la kala leeyahay oo aan la helin Galmudug wax la wada leeyahay, waxaa khatar ku jira mustaqbalka Galmudug, taasoo khatar gelinaysa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. waa dhab reer Galmudug inaad xoolaha kala leedihiin, inaad beeraha kala leedihiin, inaad ceelasha kala leedihiin, inaad beelaha aad kala dhalateen aad ku kala abtirsataan sida halkan ba aad ka sheegteen. laakiin caawa iyo berri waxaad u baahan tihiin inaad samaysataan wax aad wada leedihiin oo aad wada difaacdaan.
lexjecla idinka wada hayso aada u siman tihiin oo hoggaankeedu galo doorasho xor iyo xalaal ah oo xilkeedu meerta yahay waxaad u baahan tihiin maamul waxaad u baahan tihiin dowlad goboleed galmudug ah dowlad goboleed sida geed weyn ah oo aad wada harsataan oo qoraxda ka hoos gashaan ama aada roobka uga okorataan waxaad u baahan tihiin inaad heshaan wax isku kiin soo dhaweeya isu kiin keena gogasha maanta fidsan iyo shirkan aan caawa halkan ku daahfurayno waa albaabkii laga gelayay dowladnimada galmudug waa muhiim in haddii aan nahay reer galmudug aan ka baranno reer xamarka yidhaahda waa kufay ma xuma laakiin waa kici waayey ayaa xun reer galmudug haddii aan nahay waa inaan aqbalnaa inaan kufnay markaan aqbalna kadib waa inaan dhulka iska qaadnaa waa inaan kacnaa oo aan nabadda ka wada shaqaynaa waa inaan kacnaa oo aan soomaali tusnaa waxaa nala ka aaminsan yahay nabad ayaa la dugsadaa ee colaad lama dugsado nabad aadan waxba ka helin ayaa ka fiican colaad aada wax badan ku heshay waayo waatanay soomaalidu tiraahdo wada doone waa wada daadshe ma doonayno in galmudug ahaato meel qofkii caroodaba uu caradiisa keeno oo col iyo ciidan ka raadsado ma doonayno astaanta galmudug inay saas mar dambe ahaato waxaan doonaynaa inay astaanteennu ahaato nabadda horumarka iyo dowladnimada waxaan rabnaa galmudug inay ahaato muunada soomaalinimada kana faa'iidaysano astaamaha dadkeeda astaamaha dadka galmudug oo ku salaysan inay lihiin dad qiiro leh dad qab leh dad dhaqanka garanaya dad muuqaalka lagu yaqaano ay yihiin soomaalinimo dad aan aqbalayn quursi dad aan ku shaqayn nacayb waa inaan ogaanaa in gogasha la dhigay iyo heshiiska laydinkugu baaqay inay tahay furaha mustaqbalka galmudug oo ku qotoma nabad dowladnimo midnimo wax wadaag wada noolaasho iyo iscafis iscafiskaas isaga ah waxaa shalayto tallaabadii ugu horreysay noo qaaday ilaahay khayr ha siiye reer xeraale iyo reer huushe iyadoo laga walwalsan yahay sidee bay u heshiin doonaan ayay shalayto iskacan qaadeen oo xalayto aan u xafladeynay oo aan ballan qaadnay inaan dhammaystiri doono rajaday galmudug leedahay waxaa kaloo markhaati ka ah warmartiyeedkii ka soo baxay shirkii maanta lagu soo xiray hobyo waxaa markhaati ka ah in dadkii shirkii soo xiray madaxdii oo dhan ay halkan fadhiyaan si ay qeyb uga qaataan furitaanka shirka waxaa muuqata galmudug midaysan oo isku imaanaysa haddaba haddii si dhab ah aan u heshiino haddii aan nahay reer galmudug oo ay muhiim tahay waxaa la hubaa inuu ilaahay noo furaayo albaabadiisa naxariista waxaa la hubaa haddii aan si daacad ah oo qalbi ah u heshiino sida ay reer xeraale noo bilaabeen iyo reer huushe inay xoolaheenu noo dararayaan in dhulkeenna sarac fiican nooga soo bixi doono in roob abaaraha joogtada naga joojiya uu noo di'i doono in dhaqaalaheennu ay noo barakoobaan in cilmiga aan barannay ay dadkeenna iyo dalkeenna wax ku tari doono
ma jirto maanta sabab dambe oo aan isku diidno haddii aan nahay dad Soomaaliyeed ama reer Galmudug ma jirto sabab lagu coloobo ma jirto sabab lagu kala fogaado waayo kulligeen waxaan nahay Soomaali waxaan nahay daris waxaan nahay walaalo waxaan nahay qaraabo waxaan nahay xidid waxaan nahay ood wadaag waxaa idinka dhaxeeya wax walba waxa marka dhexdeena yaala kaliya waxa lagu tilmaami karaa wixii la dhihi jiray waa subag weel ku daatay sina uma xumaado sidaasaa tihiin meel lama kala aadi karo odayaashina dhaqanka way noo fadhiyaan haddaba si aan u heshiino ama aad u heshiisaan nidaam iyo maamul loo dhan yahay loo sameeyo waxaa muhiim ah inaan isla garanno inaan danta gaarka ah iyo danta beelnimada meel iska dhigno oon ka wada shaqeyno danta guud sababtu waxa ay tahay danta gaarka ahi way keeni weysay qarannimo beelbeel iyo qoloqolana way keeni weysay qarannimo qabyaalad iyo musuqmaasuqna way keeni waayeen qarannimo dowladnimada wax walba ka wanaagsan dhaqanka Soomaalida marka indhihiisa lagu fiiriyo ayaa waxaa la yiraahdaa marka ay baqali faris ka wanaagsanaato ama loo eegeel ka fiicnaato ama saliid ay subag sixina ka fiicnaato ayaa beel koox iyo urur ay ka fiicnaan karaan dowladnimada dhinac walba laga fiiriyo dhaqankeena marka lagu qiyaaso jawaabta noo soo baxaysa waxay tahay waxaana deeqi karta dowladnimo kaliya intii aan joogay Galmudug degmooyinkooda waxaa ii suurto gashay inaan soo maro meelo badan jidka aan ku safro la kulmo dad fara badan dhalinyaro iyo waayeel kulligood waxaa ka muuqatay inay diyaar u yihiin dowlad goboleed Galmudug ah oo midaysan kulligood waxaa ka muuqatay inay rabaan nidaam u adeega oo siiya adeegyada ay u baahan yihiin oo aan iyaga ka adeegan kulligood waxaa ka muuqatay inay daaleen oo ay ka daaleen dhib soo maray waxaa kaloo ka muuqatay oo nasiib darro ah inay aaminsan yihiin laga soo bilaabo waqtigii xorriyadda la qaatay in dowlad aanay deegaanka si wanaagsan uga shaqeyn waa siduu ugu yiri odaygii aan ku arkay gaalkacyo aan marar badan ku soo celiyay oo yiri markaan Galmudug ku sheego sida ay tahay waa haddii nabi aadan la soo saaro oo adduunyada lagu soo wareejiyo meesha kaliya uu dunida ka aqoonsanayo waa Galmudug sababtoo ah waxba iskama bedeleen oday reer Galmuduga oo rabay inuu si sahlan ii fahamsiiyo waxa ay reer Galmudug tabanayaan ayaa ii sheegay arrinka macnaheedu waxay tahay dadkeena siyaasiyiinta ayaa fariin loo dirayaa oo ah haddii la rabo inay shacabka Soomaaliyeedna aqbalaan waa in dowladeedu ay adeeg bixisaa adeegana ay keentaa meesha ay shacabku joogaan waxaa kaloon ka soo bartay in shacabka reer Galmudug ay yihiin dad naxariis badan albaabadoodu furan yihiin kulligood kaliya ay u baahan yihiin in lala fariisto la dhageysto lala hadlo looga garaabo wixii looga khaldan yahay laakiin iyaguna ay si fudud uga garaabaan wax walba waan ka codsanay maadaama marka rabitaanka shacabkeenu uu yahay midnimo iyo dowladnimo waa in idinka madaxda ah oo halkan fadhiya siyaasiyiin rag iyo dumar odayaal dhaqameed
وأنا نكرر مينار ربيتان كشعبك كان وضع شغينا دنت جود سببت waxay tahay markaan danta guud ka shaqeyno ayaa qof waliba danta gaar u hagaagaysa qofkii guta danta guud dantiisa Ilaahay baa u gudaa waa kuwa culimadu mar walba noo sheega sidaas daraadeed waa inaan xasuusinaa inaanan u baahnayn inaan walwalno markaan danta guud ka shaqeynayno uma baahnayn inaan musuqmaasuq ka shaqeyno uma baahnin inaan qabyaalad ka shaqeyno uma baahnin inaan dan gaar ah darteed Ilaahayna dambi uga galno dadkeena iyo dalkeenana ku dhibaateyno sababtoo ah qof walba irsaaqadiisa Ilaahay baa qoray xoog laguma keeni karo qof walba saldanada uu raadinayana Ilaahay baa qoray haddaan lagu qorin heli maysid haddii lagu qorayna adigoo iska jiifaad helaysaa أنا مرخاتي كانوا اسكجي فيتم شركة المركة ويسوي مادين هرمود كرر قلمود قردن وعن رجينا يا إن أدتكين وقفا إليسان ونهر سيدان هرمر أنقو وانسو شقيني هل كان نسو قارسيني معنى هذا معها لقبل الله بهدا in la leeyahay dawladdu maxay shirka ka qabanaysaa laga bilaabo caawa qof walbo halkan fadhiya mas'uuliyad ayaa ka saaran sidii shirkani u najixi lahaa dib u heshiisiintu u dhamaystirin lahayd dawlad goboleedkii halkan laga sheegayo qof walbo soo istaagayna ku salaysneed furfurnaanta iyo cadaaladda iyo hufnaantana looga dhisi lahaa waxaan rajeynayaa in shirku inta uu socdo iyo inta dhismaha galmudug ay socoto inaan fahmi doono in haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqeyso midnimo iyo dawladnimo in horumar la gaarayo sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqeysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taagana وارون قبيلان كلا نهاي لكن قبيالة دينا نكون شغيسنا مربنا وحال هو إن كدوات كون كقف هل كان فرديا عاوة رجي الدمر دليري ويل هدي قلبي جود فران اسكت دوبمان اسكت تناسلان يجو التناسل هي مستقبل كشعب كرجال مدوك ونفهمان هرمرك الشعب كرجال مدوك إنه كحرية هاي هرمرك الشعب كصوماليات إن هرمروين هل كانوا كيمانا دولة نمدو وحين نجبر برتي مركي انتهينا أنكلقوا قبنا من نمدو وحين نجي راتي مركي انتهينا أم بيلا كلا نغني كنا شقينا سدا sidaas daraadeed waa inaan ka guurno fikirka khilaafka ku dhisan waa inaan ka guurno dhaqanka colaadda ku dhisan waa inaan ka guurno maslaxadda qabyaaladda ku dhisan waa inaan aqbalnaa inay dawladnimadu macaan tahay oo aan kulligeen u guurno dawladnimada waa inaan aqbalnaa in dulqaadku uu ilaaliyo damiirka dadka waan kulligeen isu wada dul qaadan waa inaan aqbalnaa in darisnimadu ay tahay inaan isu dabacnaa isu dabacaasina uu dawladnimada ilaaliyo sidaas daraadeed ay tahay inaan darisnimada dhowrno waa inaan aqbalnaa inaanay cidi noo imaanay inaanay galmudug noo dhisayn oo cidda la rabo inay galmudug dhisto annaga ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo anigu aan ra'iisul wasaaraha ka ahay oo abshir uu ka yahay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo xildhibaanada iyo wasiirada halkan jooga ay qayb ka yihiin intaasoo qofii waa reer galmudug mas'uuliyad waxay naga saaran tahay inaan dadka reer galmudug kala shaqeyno inaan la dhisno
nidaam ay iyagu leeyihiin dhibka ka saara caruurta mustaqbalka u horseeda. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxay ballan qaadayaan in nidaamkani uu noqdo nidaam hufan oo horseeda galmudug mustaqbal leh. dadka halkan fadhiya dowlad iyo odayaal dhaqan iyo dad cid kaleba waxaan rabaa inaad hal mid xasuusataan. deegaanada galmudug oo caawa gacanta ugu jira cadowga Haradheere, Ceeldheer, Ceelbuur, Ceelgaras, la helay Galhareeri, meelahaas oo dhan mustaqbalka wiilka iyo gabadha 5 ama 10 sano jirta ee halkaas ku nool, mustaqbalka dadkaas ay filayaan waa siday u dhaqmaan dadka halkan fadhiya. waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad isku haysataan anigu maxaan heli doonaa, shirkan siduu noqon doonaa. waxaan rabaa waxyar inaad ka fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaad u dhaqantaan, ama aad u fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaad isugu tanaasushaan. bil walba iyo sanad walba oo ka luma wiilkaas iyo gabadhaas Ceeldheer ama Haradheere joogta, waxaa mas-uul ka ah mar walba qof walba oo halkan taagan oo mas-uul ka ah. ma isku khilaafi karno inaan dhisno galmudug midaysan, ma isku khilaafi karno inaan ka shaqeyno inaan xoreyno deegaanada galmudug, ma isku khilaafi karno inaan caruurteena mustaqbal u sameyno. dhib ma noqon karto inaan u talaasulno wax anaga naga weyn oo ah sharafta iyo karaamada dadka Soomaaliyeed iyo kuwa reer galmudug gaar ahaan caruurta soo koraysa. haddii marka aad dareemaysid inuu culays jiro, haddii aad dareemaysid shaqadu inay dhib tahay, haddii aad ka walwalaysid caawa sideebaa dowlad goboleed ku dhismi doona, ka walwal wiilka yaadka u tahay ama eedada iyo habaryarta aad u tahay oo jooga meel cadow haysto oo halka hami uu leeyahay adigu waxa aad qabato sida aad u fikirto ama sida aad dadka ku dhinac fadhiyo ula shaqeyso. waxaan rabnaa shirkan dib u heshiisiinta sida la sheegay inuu soo dhammaystiro wixii hore oo galmudug ay lahayd, nidaamkii noo degsanaa. dad badan oo Soomaaliyeed ay ka soo shaqeeyeen laga bilaabo Gaalkacyo oo senator Cabdi Qaybdiid uu nagala joogo, dad badan ay madax ka soo noqdeen, qaar nool iyo kuwa aan nooleenba. nidaamkaas inaan sii xoojino oo uu noo dhalo dowlad goboleed kulligeen aan ku wada qanacsannahay. sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan halkan ka caddeynayaa marka ugu horeysa in shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug uu noo furan yahay, kulligeenna aan ka wada qayb galayno. waxaa kaloon soo jeedinayaa codsi ah, way noo dulqaateen culimmadii ahlu sunna, magaalo madaxdii waan isugu nimid, ciidamadii waa la qarameeyey, kuwa amisom way joogaan, ku dhowaad 1000 ergaa iyo madaxdii galmudug oo dhan ayaa halkan fadhida. waxaan idinka codsanayaa fursaddan iyada ah inaan laga lumin reer galmudug. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.